kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijyo gaar ah oo aynu uga hadli doono taariikhda qaar ka mid ah wadamada caalamka. waxaynu ku bilaabi doonaa wadamada khaliijka ama wadamada Carbeed. maanta waxaynu sheekada ugu horeyda ku soo qaadan doonaa wadanka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Abu Dhabi ee caasimadda wadankaasi. Abu Dhabi waa caasimadda dalka isku taga Imaaraadka Carabta. waxay ku taalaa jasiiradda Abu Dhabi, waxayna ku fidsan tahay biriga iyo jasiiradaha ku xeeran wadanka, waana dhul hodan ku ah soo saarista saliidda. Abu Dhabi waxay ka mid tahay meelaha ugu qurxoon adduunka, waxaana dalxiis sanad kasta u yimaada ajaanib aad u fara badan kuwaasi oo aan u dhalan dalka. sidoo kale Abu Dhabi waxaa ku nool dadka kaalimaha hore uga jira dadka ugu taajirsan adduunka, maadaama ay ku nool yihiin 75,000 oo milyaneer ah. cufnaanta dadka ku nool Abu Dhabi waa kuwa kala duwan, maadaama magaaladan lagu yaqaan ciriiri iyo isu socodka dadka, taasina ay tusaale u tahay kala duwanaanshaha dadka ku nool Abu Dhabi. dadkii ugu horeeyay ee deganaa jira dalkan waxay ku noolaan jireen gobolada Al Ain, Liwa iyo sidoo kale dhulalka Al Dhafra, waxayna ku tiirsaneed noloshoodu dhaqashada geela, goosashada miraha timirta iyo sidoo kale kalluumaysiga. waxayna had iyo jeer ula safri jireen xoolahooda halka ay biyo iyo daaq ka heli karaan, iyaga oo ka gudbi jiray laba degaanka dhanka bari ee gobolka Ayr iyo sidoo kale koonfur galbeed ee dhanka Liwa. inta badan dhismayaasha magaalada Abu Dhabi waxay ahaan jireen kuwa burbursan, taasi oo timid dhamaadkii xilligii dahabiga ahaa ee ganacsiga kadib burburkii warshadaha lu'lu ee dabiiciga ah, iyagoo ay soo ifbaxeen lu'lu macmal ah, kuwaas oo loo tixgeliyay ilaha ugu waaweyn ee dakhliga dadka ku nool Abu Dhabi. suuqyada magaaladan waa ay yaraayeen, waxaana ka mid ahaa badeecooyinka ugu waaweynaa ee lagu gadi jiray magaaladan raashinka. kadib markii uu dhulkii fiicnaa uu qarxay, badii way go'day oo khasnadihii dahabka madow waxay u muuqdeen inay tirtiraan haraadka dhulka oo ay magdhow u siiyaan dadka reer Imaaraad ee ku nool murugta iyo sidoo kale darxumada. balse qarni kadib Abu Dhabi waxa ay bilowday marxalad cusub oo taariikhi ah iyo sheekooyin geesinimo leh. dhismo iyo horumar ballaaran ayaa ku bilowday, waxa ayna noqotay sidaan aad hadda u jeedaan ee quruxda badan. Abu Dhabi caasimadda dalka isku taga Imaaraadka Carabta, dhismayaasha ugu caansan ee ku yaala waxaa ka mid ah dhismaha hay'adda maalgashiga ee Abu Dhabi, qaybta ugu weyn ee bangiga qaranka, shirkadda isgaarsiinta Imaaraat Tower, daaraha Etihad iyo sidoo kale mashruucyada munaaradaha ee jasiiradda Al Reem.